Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran janalkani Zack Multimedia. Maanta waxaan rabaa inaan idila wadaago su'aalo ka yimid walaalaha ku xiran janalkani Zack Multimedia. Su'aalahaas markaan wada fiiriyay waa su'aalo isku wada mid ah kuwaas oo aan jeclaystay in aan maanta muuqaalkan aan ka soo sameeyo. Marka sidaad u jeedo commentigan ugu hore wuxuu leeyahay walaalkani sida tan oo sida videoga aan ugu darsan lahayn light leaks. Walaalkani kale markaad fiiriso su'aashiisana waa isla sidii oo kale. Ugu hore marka sidaad u fahanto waa maxay light leaks? Light leaks waa nalal kuwaas oo motion sameynaya dhaqdhaqaaq ay sameynayaan sida hadda videogan horta kaaga muuqdo videogan kuma jiro wax light leaks ah laakiin markaan ku yara darno wuxuu noqonayaa sida tan oo haddeertan aad u jeedo kuwaasi oo motionis aad u qurxoon sameynayaan inta badan haddana muuqaalada dhawaantani aad iyo aad ayaa loogu adeegsadaa marka kusoo dhawaada marka ugu horreynba light leakska waxaa jiro kuwa ayagoo templateya ah oo Adobe Premiere Pro lagu adeegsado iyo kuwa movies ah marka labadaba waan idin tusin doonaa marka qaybta ugu horeysa hadaan ku horumarno kuwa templateada iska yar caadiga ah ugu hore marka waxaad soo furanaysaa any browser aad isticmaalayso markaad browserka aad sidan usoo yar furto kaliya waxaad ku qoraysaa introhd.net markaad introhd.net aad ku yar qorto kadib marka waxaad leedahay enter isla markiiba wuxuu ku gudbinayaa page-ka kale aad kala soo degi lahayd marka website-kan sidaad u jeedo waxaa ku yara jiro templateyo aad iyo aad u qurux badan waana ka heli doontaa haddaad taneenayso marka website-kani muuqaal hore ayaan ka yara sameeyey marka qaybtan sare ayuu kaaga soo bixi doonaa marka haddii aad dib dambe aad ugu laabato channelka thumbnailkiisana qaabkan ayuu u yara ekahay marka qaybta searching-ka waxaan ku qoranaynaa light leaks kadib waxaan leenahay searching ayaan leenahay markaan searching aan sidaan u dhahno marka kuwaani ayuu sidaan kuugu soo bandhigayaa marka hadda videogani wuu nagu dheeraanayaa haddaan ku yaro tusiyo qaabka loola soo dego dhib ma lahan kuwo free ah oo movies ah ayaa waxaan soo dhigi doonaa dhanka iyo channel telegramka aan ku leenahay ayaan soo dhigi doonaa marka kuwaani haddaad danaynayso sida loo soo degsado iyo habka ugu wanaagsan ee loo soo degsado marka videogaasi ayaad inta badan fiirsanaysaa marka haddaan kasoo yara baxno dhankan iyo browserka markaan browserkan sidan ugu soo yara baxno ugu hore marka meeshan sidaad u jeedo waxaa noo yaalo folder marka haddaan folderkan aan furno waa qaybtii labaad ee dhanka iyo moveka marka movies waxaan ku leeyahay waxay tahay extensionkiis ayaa wuxuu yahay move marka kuwan sidaad u jeedo waxay gaarayaan 1 ilaa iyo 43 ayay gaarayaan folderkani GB-giisa ayaa aad iyo aad u weyn waa ku dhawaad wuxuu gaarayaa 2 GB marka si aadan u dareemin waxaan kaga soo dhigi doonaa qayb taban ayaan waxaan ugu soo ridi doonaa WinRAR marka part 1 part 2 part 3 oo kale ayaan kusoo yara qori doonaa waxaan soo dhigi doonaa Telegram channelka aan leenahay marka sidee ayaan marka ugu darsan karnaa light leakskani aad u qurux badan sidee ayaan ugu darsan karnaa videogeena aan u gudubno Adobe Premiere Pro-geena markaan Adobe Premiere Pro-ga aan sidaan usoo yara furno ugu hore marka videogan ayaa waxaa rabnaa in aan ku baraatikeeno marka videogani ayaa waxaan keensanaynaa dhankan iyo timeline-ka marka sida aan u keenno waxaan leenahay right click kadib waxaan kasii dooranaynaa new sequence from the clip marka timeline-ka waa halka lagu habeeyo muuqaalada markaan hadda timeline-ka aan sidaan u yara keensano ugu hore marka movies-ka ayaan adeegsanaynaa anaga template ma adeegsanayno marka movies-kan project panel-ka ayaan double click siinaynaa kadib lightskan midkaad rabto waad ka isticmaali kartaa marka anaga hadda mid ayaan tijaabinaynaa oo tusaalahaan midkani ayaan dooranaynaa kadib markuu noo soo galo project panel-ka waan soo dragging garaynaa waxaan soo saaraynaa videoga qaybtiisa sare ayaan soo saaraynaa ma ahan qaybtiisa hoose marka light leakskan sidaad u jeedo marka videogeena ayuu naga qariyay videogeena ma arki karno waayo videoga sidaad u jeedo wuxuu ku aadan yahay video 1ka light leakskan wuxuu ku aadan yahay video 2ga ayuu ku aadan yahay marka sidaad u jeedo asiga ayaa qaybta sare noo soo yara maray marka videogeena sidan baan ugu darnay light leakska maya step kaliya fudud ayaa kuu dhiman stepkaasna marka wuxuu yahay in aad tagto effect controlska ugu hore marka waa in iska fiirisaa in uu ku dooran yahay light leakska aad layerka sare aad soo saartay marka qaybtani opacity ayaad ka yara tagaysaa kadib waxaad kasii dooranaysaa blend mode markaad furto kaliya waxaad ficta saaranaysaa screen markaad screen aad ku yara dhufato sidaad u jeedo marka videogaaga sidaani sahlan ayaa lagugu yara darayaa light leakska waa nalalkani
oo aad u qurux badan ayuu lagugu daraya. Marka intaasi light leakisyo waad adeegsan kartaa. Marka haddii uu videogaaga light leakiskan uu ka yara dheeraado waad la simeysaa, waayo waxaad doonaysaa in uu videoga la bilowdo uu la dhammaado. laakiin hadda videoga originalka ayaa dhammaanaya, light leakiska ayaa sii soconayo. marka midkaasi waa qaabdaro. marka si aysan kuugu dhicin midkaani ayaad iska soo yareynaysaa. adiga waxaad la yarasimaysaa videoga ayaa markaasi la yarasimaysaa. markaad videoga sidaan aad ula sinto hal mar ayay isla yara bilaabanayaan, hal marna ayay wada dhammaanayaan. marka kuwa kalena sidaan sahlan ayaad u adeegsan doontaa. ugu horreyn marka intaadan ku darin light leakiska videoga isku yarday in aad colorkiisa aad saxdo. sidoo kalena light leakiska opacitygiisa meeshaan ayaad ka yareyn kartaa. dhankan iyo opacity waa 100, meeshaasi adiga tusaale ahaan hadda 80 ama 70 aad ka yara dhigto light leakiska opacitygiisa wuu yaraanayaa. insha Allah marka waxaan soo dhigi doonaa light leakisyadani dhankan iyo Telegram channelka aan leenahay ayaan soo dhigi doonaa. part 1 part 2 part 3 oo kale ayaan kasoo yara dhigi doonaa. meeshaasi ayaad kala soo degi doontaan insha Allah. marka intaasi ayaan jeclaystay inaan idila wadaago. fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeysa channelkeena soo booqatay fadlan subscribe saar, furo calaamad gambalelka si ay kuugu soo dhaca muuqaal walba aan soo gelino. haddaad videogan ka faa'iideyna like garee si YouTube-ga videogan u sii faafiso una sii gaarsiiso walaalaha kale. inta badan channelkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia. ugu dambeyntiina waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.